الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إلهي باكليدي مهدله مدحوينها جمهورية الصوماليلاند مدن عبد الرحمن محمد عبد الله maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bishii 6 2025 waxa uu soo saaray wareegtooyin madaxweyne oo tiradeedu ay tahay 23 wareegto wareegtooyinkaasina waxay u kala dhignaayeen sidan soo socota wareegtada koowaad wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan darsay xeerka hay'adda hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda xeer lambar 108 2024 markii aan tixgeliyay ahmiyadda hay'adda hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladdu ay u leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba isla markaana aan garwaaqsaday inuu hanan karo mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan la sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Saleebaan Maygaag Obsiya Cali uu ahaado agaasimaha guud ee hay'adda hawlgabka iyo xaqsiinta shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 in gudida sare ee maamulka hay'adda hawlgabka iyo xaqsiinta qaranku ay ka koobnaadaan xubnaan hoos ku xusan wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska 2 wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha 3 wasiirka wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta qaranka 4 wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta 5 gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Allah mahadle Cabdirahmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtada labaad ee madaxweynuhuna waxay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan tixgeliyay ahmiyadda cisbitaalka guud ee Hargeysa uu u leeyahay hanaanka adeeg bixinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba isla markaana in ay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan la sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Dr. Axmed Weli Daahir Xaddi uu ahaado agaasimaha cisbitaalka guud ee Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 in Dr. Cabdiraxmaan Cabdisamed Ibraahim Cayngal uu ahaado ku-xigeenka agaasimaha cisbitaalka guud ee Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdirahmaan Maxamed Cabdilaahi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtada saddexaad waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan darsay xeerka garyaqaanka guud ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 982 markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba isla markaana inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in garyaqaan Cali Baashe Maxamed Faarax uu ahaado garyaqaanka guud ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 in garyaqaan Mubaarak Maxamuud Cabdi Fallaag uu ahaado ku-xigeenka garyaqaanka guud ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtada afraad ee madaxweynuhu maanta soo saaray oo ay taariikhdu tahay 17 bishii 6 2025 waxay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan darsay xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer lambar 19 markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba isla markaana inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in Dr. Sakariya Cabdi Bada Diiriye uu ahaado agaasimaha guud ee komishanka doorashooyinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdirahmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtada 5aad waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan tixgeliyay ahmiyadda ay la taliyayaasha u leeyihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba isla markaana inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyay la tashi waxaan go'aamiyay in Kamaal Axmed Cali Marjaan uu ahaado la taliyaha istiraatiijiyadda isgaarsiinta iyo xiriirka dadweynaha ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland number 2 in Dr. Cabdisamed Cumar Maal
uu ka mid ahaado la taliyayaasha sharciga ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada lixaad waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyey la tashi waxaan go'aamiyey kow in aamina axmed furre siciid ay ahaato xubin ka mid ah guddida hay-adda shaqaalaha dowladda ee jamhuuriyadda somalilan laba in khadar cali caarshe uu ahaado maareey ku-xigeenka hay-adda horumarinta waddooyinka jamhuuriyadda somalilan saddex in cabdibaasid maxamed gaani uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka gobolka buuhoodle ee jamhuuriyadda somalilan wareegtada 8aad waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeerka hay-adda caymiska qaranka xeer lambar 292/2020 markii aan tixgeliyey ahmadda hay-adda caymiska qaranku ay u leedahay dhismaha qaranka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey kow in axmed xirsi ducaale xasan uu ahaado guddoomiyaha hay-adda caymiska qaranka ee jamhuuriyadda somalilan laba in cabdirashiid saleebaan axmed uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka hay-adda caymiska qaranka ee jamhuuriyadda somalilan saddex in cabdisalaan maxamed maxamuud buusi uu ahaado agaasimaha guud ee hay-adda caymiska qaranka ee jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada 9aad ee maanta uu madaxweynuhu soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeerka guddida dhowrista tayada xeer lambar 8/2024 markii aan tixgeliyey ahmiyadda guddida dhowrista tayada qaranku ay u leedahay dhismaha qaranka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalan kara xilalkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey kow in maxamed kayse axmed maxamed uu ahaado guddoomiyaha guddida dhowrista tayada ee jamhuuriyadda somalilan laba in doctor maxamuud jaamac cali uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka guddida dhowrista tayada ee jamhuuriyadda somalilan saddex in doctor aniisa cabdi axmed gurey ay ahaato xubin ka mid ah guddida dhowrista tayada ee jamhuuriyadda somalilan afar in cabdirashiid maxamed xuseen jaamac uu ahaado xubin ka mid ah guddida dhowrista tayada ee jamhuuriyadda somalilan shan in xasan yuusuf maxamed samatar uu ahaado xubin ka mid ah guddida doorashooyinka guddida dhowrista tayada ee jamhuuriyadda somalilan in saciid cabdi xasan cirmadow uu ahaado xubin ka mida guddida dhowrista tayada ee jamhuuriyadda somalilan in axmed cali ismaaciil uu ahaado agaasimaha guud ee guddida dhowrista tayada ee jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada 10aad ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan soo saaray maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bishii 2025 waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeerka waxbarashada qaranka xeer lambar 7/2018 iyo xeerka madaxweyne lambarkiisu yahay eber 9 eber 1 2 eber 2 1 markii aan tixgeliyey ahamiyadda guddida tacliinta sare ay u leeyihiin dhismaha qaranka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey kow in brofesor xasan cumar halas khayrdoon uu ahaado guddoomiyaha guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan laba in saleebaan aadan maxamed uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka
guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan in jaamac maxamed cabdi falaash uu ahaado xubin ka mid ah guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan 4 in maxamuud ibraahim cismaan shamsudiin uu ahaado xubin ka mid ah guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan 5 in cabdirasaaq maxamed axmed uu ahaado xubin ka mid ah guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan 6 in aftax siciid jaambiir uu ahaado xubin ka mid ah guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan 7 in haybe cismaan muuse uu ahaado xubin ka mid ah guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale ee madaxweynuhu maanta oo taariikhdu tahay 17 bishii 6 2025 uu soo saaray waxay u dhignay sidan wareegta madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan tixgeliyey ahamiyadda wakaaladda madbacadda qaranku ay u leedahay adeeg bixinta xukuumadda jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey in cabdiraxmaan ibraahim aadan abees uu ahaado maareeyaha wakaaladda madbacadda qaranka ee jamhuuriyadda somalilan 2 in cabdixakiin muuse cali uu ahaado maareeye ku-xigeenka wakaaladda madbacadda qaranka ee jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale ee maanta uu madaxweynuhu soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeerka qandaraasyada qaranka xeer lambar 2018 markii aan tixgeliyey ahmiyadda guddida qandaraasyada qaranku ay u leeyihiin dhismaha qaranka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadoodaba isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey 1 in cabdo axmed aayar uu ahaado guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan 2 in ibraahim ducaale cawke xasan uu ahaado guddoomiye ku-xigeenka guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda somalilan 3 in yuusuf sheekh axmed cali weerar uu ahaado xubin ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda somalilan 4 in nadra cali xasan qaafil ay ahaato xubin ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan 5 in cabdi yuusuf daahir xirsi uu ahaado xubin ka mid ah guddida qandaraasyada jamhuuriyadda somalilan 6 in muumin gadiid cumar uu ahaado xubin ka mid ah guddida qandaraasyada jamhuuriyadda somalilan 7 in mubaarig cabdi xasan buuni uu ahaado xubin ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda somalilan 8 in cabdirashiid siciid cindi uu ahaado xubin ka mid ah guddida qandaraasyada jamhuuriyadda somalilan 9 in mustafe maxamed yoonis uu ahaado xubin ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan 10 in cabdiraxmaan aadan cilmi boodle uu ahaado agaasimaha guud ee guddida qandaraasyada qaranka ee jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale ee uu madaxweynuhu soo saaray maanta oo ay bishu tahay 17 bishii 6 2025 waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeerka hantidhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan xeer lambar 76 markii aan tixgeliyey ahamiyadda hantidhowrka guud ee qaranku uu u leeyahay habsami u socodka howlaha xukuumadda jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey 1 in muuse yuusuf cismaan idigaa uu ahaado hantidhowraha guud ee qaranka jamhuuriyadda somalilan
laba in Bashiir Maxamed Cumar Xayd uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka hantidhowraha guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. wareegtada kalena waxay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid. markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan darsay xeerka guddida mihnadlayaasha caafimaadka ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 19/2001, markii aan tixgeliyay ahamiyadda guddida qaran ee mihnadlayaasha caafimaadka ay u leedahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan ku qancay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba, isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan, markii aan la sameeyey la tashi, waxa aan go'aamiyey 1 in Dr. Cabdi Daahir Cilmi Bulaale uu ahaado gudoomiyaha guddida mihnadlayaasha caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland. 2 in Dr. Cabdiraxmaan Xasan Ismaaciil Gamaamiye uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka guddida mihnadlayaasha caafimaadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. wareegtada kalena ee madaxweynuhu maanta soo saaray waxay u dhigmayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid. markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan darsay xeerka komishanka qaranka xakamaynta AIDS-ka xeer lambar 76/2014, markii aan tixgeliyey ahamiyadda xubnaha guddida agaasinka ee maamulka komishanka xakamaynta AIDS-ku u leeyahay dhismaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadooda, isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan, markii aan sameeyey la tashi, waxa aan go'aamiyey 1 in Dr. Maxamuud Cabdi Maxamed uu ahaado agaasimaha guud ee komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 2 in Xamdi Daahir Afqarshe ay ahaato agaasimaha maamulka iyo lacagta ee komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 3 in Ismaaciil Cabdilaahi Cilmi uu ahaado agaasimaha tababarada iyo horumarinta howlwadeennada komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 4 in Barkhad Maxamuud Geedi uu ahaado agaasimaha wacyigelinta iyo abaabulka ee komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 5 in Dr. Khadar Good Nuur uu ahaado agaasimaha daaweynta iyo daryeelka ee komishanka qaranka ee xakamaynta AIDS-ka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. wareegtada kale ee madaxweynuhu maanta soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid. markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan darsay xeerka hay'adda diyaargarowga aafooyinka ee xeer lambar 35/2017, markii aan tixgeliyey ahamiyadda ay hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka u leedahay qaranka, markii aan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba, isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha culus ee ka dhalanaya xilkan, markii aan sameeyey la tashi, waxa aan go'aamiyey 1 in Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Diixood uu ahaado gudoomiyaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. 2 in Cabdiraxmaan Maxamuud Xandulle uu ahaado gudoomiye ku-xigeenka hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. weli waxaynu ku guda jirnaa wareegtooyinkii madaxweynuhu soo saaray. wareegtada kalena waxay u dhignayd sidan wareegta madaxweyne magacaabid. markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan darsay xeerka komishanka maamul wanaagga ee xeer lambar 58/2022, markii aan tixgeliyey ahamiyadda komishanka maamul wanaaggu ee uu leeyahay dhismaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan arkay aqoontooda, kartidooda iyo waayo-aragnimadoodaba, isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan, markii aan sameeyey la tashi, waxaan go'aamiyey 1 in Dr. Aadan Axmed Daahir uu ahaado komishanka maamul wanaagga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, in Madar Siciid Xasan Qawle uu ahaado komishanka maamul wanaagga ee Jamhuuriyadda Somaliland in Cabdiwahaab Faarax Nuur
uu ahaado xubin ka mida komishanka maamul wanaagga ee jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale ee uu maanta madaxweynuhu soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeerka komishanka maamul wanaagga ee xeer lambar 8 markii aan tixgeliyey ahmiyadda komishanka maamul wanaaggu ee uu leeyahay dhismaha qaranka jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyey la tashi waxaan go'aamiyey sidan kow in doctor aadan axmed daahir uu ahaado xubin ka mida komishanka maamul wanaagga jamhuuriyadda somalilan in madar siciid xasan qawle uu ahaado xubin ka mida komishanka maamul wanaagga jamhuuriyadda somalilan 3 in cabdiwahaab faarax nuur uu ahaado xubin ka mida komishanka maamul wanaagga jamhuuriyadda somalilan 4 in jaamac aadan maxamed uu ahaado xubin ka mida komishanka maamul wanaagga jamhuuriyadda somalilan 5 in cabdiqani axmed cali muuse saxardiid uu ahaado xubin ka mida komishanka maamul wanaagga jamhuuriyadda somalilan in deeqa xaashi xandulle cige ay ahaato agaasimaha guud ee komishanka maamul wanaagga jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale uu maanta madaxweynuhu soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeerka madaxweyne ee lambarkiisu yahay 10 eber 1 2 eber 21 markii aan tixgeliyey ahmiyadda macadka cilmi baadhista beeraha ee jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontooda iyo waayo-aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyey la tashi waxaan go'aamiyey kow in cali ismaaciil ibraahim uu ahaado agaasimaha fulinta ee macadka cilmi baadhista beeraha ee jamhuuriyadda somalilan 2 in khaalid maxamuud jaamac uu ahaado ku-xigeenka agaasimaha fulinta ee macadka cilmi baadhista beeraha jamhuuriyadda somalilan 3 in xubnaha guddida sare ee maamulka macadka cilmi baadhista beeraha jamhuuriyadda somalilan ay ka kooban yihiin xubnahan soo socda kow wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha oo ah guddoomiye agaasimaha waaxda cilmi baadhista wasaaradda horumarinta beeraha waa xubin hormoodka kuliyadda beeraha ee jaamacadda hargeysa waa xubin hormoodka kuliyadda beeraha ee jaamacadda camuudna waa xubin hormoodka kuliyadda beeraha ee jaamacadda burcana waa xubin allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale ee maanta madaxweynuhu soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan tixgeliyey ahmiyadda macadka shaqaalaha dowladda ee jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba isla markaana aan garwaaqsaday inuu hanan karo mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey in maxamuud siciid cadaad uu ahaado agaasimaha fulinta ee macadka shaqaalaha dowladda jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale ee uu maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bishii 6 2025 madaxweynuhu soo saaray waxay u dhignayd sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markii aan darsay xeer madaxweyne xeer lambar eber 4 6 eber 2 eber 2 eber markii aan tixgeliyey ahmiyadda sanduuqa dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba isla markaana aan garwaaqsaday inuu hanan karo mas-uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyey la tashi waxa aan go'aamiyey in cabdulqaadir ismaaciil axmed jaylaani uu ahaado agaasimaha fulinta ee sanduuqa dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan allah mahadle cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wareegtada kale ee madaxweynuhu soo saaray weli waxaynu ku guda jirnaa wareegtooyinkii madaxweynuhu soo saaray maanta oo ay taariikhdu tahay
17 bishii 6 2025 wareegtooyinkaas oo tiradoodu ay yihiin guud ahaan 23 dekreeto waxaa ka mid ah wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 75/2016 markii aan tixgeliyay ahmiyadda xisaabiyaha guud ee qaranku u leeyahay habsami u socodka howlaha xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa isla markaana aan garwaaqsaday inuu hanan karo mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Xasan Muuse Khaliif Geelle uu ahaado xisaabiyaha guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisa markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Siciid Xasan Biixi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska 2 in Maxamed Xasan Wacays Rooble laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiil ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka UK madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi ayaa maanta oo taariikhdu ay tahay 17 bishii 6 2025 wuxuu soo saaray 23 wareegto oo hore iyo wareegtadan aan hadda idin akhriyo doono oo ah wareegtadii 24aad wareegtada ugu dambaysa waxay u qoran tahay sidan wareegto madaxweyne magacaabid markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan darsay xeerka hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 19/2021 markii aan tixgeliyay ahmiyadda hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u leedahay dhismaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo-aragnimadooda isla markaana inay hanan karaan mas'uuliyadaha ka dhalanaya xilalkan markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyay in Cali Diiriye Axmed Nuur maalin tacab uu ahaado maareeyaha guud ee hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 in Abubakar Xaaji Cawil Cumar Cabdille uu ahaado maareeyaha ku-xigeenka guud ee hay'adaha dekedda Jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Allah mahadle Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la faray dhammaan mas'uuliyiinta la magacaabay inay xilka kula wareegaan muddo 3 cisho ah mas'uuliyiinta xilka lagala wareegayna waxa la farayaa inay u fududeeyaan mas'uuliyiinta cusub ee madaxweynaha